السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي دمان سومالوين ملول بجوكتين أنتي معلومة تعملين وناكسين تابين وناكسن أنت أكيد بوحان ربع إن موضوع عن يرتابطه أو على الحمانة يقول ذي ذاك الصوماليين ندي على الحمى كوري ذي أو ما عرفتي أرنتان أو محوها لبدان بري محوها هذا أنا السوشيال ميديا دحس عطا والدين تا المحل لقى قاعدنا يو وضنا كان أو سودان muxuu ahaadaan iyo gaar ahaanba guud ahaanba wadamada reer galbeedka horta way jirtaa niyo taasi weligeedna way jiraysay wax hadda bilaabmayna maaha inaa ilmo waalid laga qaado inta la og yahay waxa ka badan ayaan aaminsanahay inta aan la ogeyn Soomaali kaliyaatana kuma eeka ajaanib badan iyo haysataa haday noqoto Carab haday noqoto Afrikaan haday noqoto muxuu ahaadaan Yurubta gaajada xataa laga qaataa marka waxa weeyaan horta adduunka maalintii Ilaahay oo cadceed soo saaraba cilmi cusub ay ciidaas wadata awal shay kadan san meehayn san xoog yani aggressive uma yahayn oo ilmihii ma aragtay xoogaa la arkay inuu sariir ka soo dhacay dhinac u yar xagan yahayba oo qol la galay la wareysanayo oo maanta dhan ma aragtay muxuu ahaadaanay isku cashirkiisa intuu dhigan lahaa wareysi dhigaha laga qaadayo way jirtaa wadanka lagu yaqaan shaqadaas ilmaha maalintu 6 sano gaaro waxa ogaataa in bishii ama labadii bilood mar in la kulmo oo la wareysto ilmaha oo xaafadda laga wareysto oo waalidka laga wareysto ilaa xataa familada kale qaaribta yani laga wareysto wax qaraaba may ku joogan wadanka muxuu ahaadaanay maxaad qabatay weekendigi na soo dhaafay sida adu u wareysatid ka badan ayaa loo wareystaa wadankan horta ama reer galbeedka ba sidiisaba waxa ogaataa adiga xeerka uu wadanku uu kugu leeyahay ayadoon cidi kuu sheegin cidina iskuul kuugu dhigin adaa laga raba inaad samayso laga sugayaana xeerka adigu aa wadanka ku leedahayna cidinta ku timaado kuma sheegayso oo kuma dhahayso maanta waxaad ka soo qaadba muxuu ahaadaanay arintana ku dhacday xeer waxaad u leedahay inta soo maga aniga igan igu dhacday gaari aan wato iyaan shil la galay gaarigii waxaan geeyay warshadii inaan la soo hagaajiyo warshadii waxay iga haystay 22 cisho iga haystay 22 ka cisho kaliyaat waxay yiraahdeen gaari inaad ijaarato ma rabtaa may baan ku idhi waa shaqadii iskuulku iyo xaafadu isku dhawaayeen uma baahnayn laakiin waxaan xeer u lahaa $20 per day oo ah استغفر الله $10 ayaan u lahaa xeer per day guriga iyo ilaa iyo ma aragtay shaqada ama iskuulka ama waxaan rabaan qabto oo muxuu ahaadaan transportkayga maadaama gaariga aan haysan cidii ma sheegintii cidii galma yahdal wadankana wax walba waxa waa muddo hadii aad doonan weydo waxa xeerka aad u leedahay muddo inta laga joogo u gubtay waxaasi waxyaabo badan waxa jira wadanka aad xeer aad adigu u leedahay oo intay gurigaaga albaab soo garaacday ay ku macneyneen iyo waxyaabo badan wadanku uu kaaga fadhiyo oo adigu hadii aad maanta aad garan weydid laleeyahay waxba naga ma garan anaga inaad u baratay ahayd oo lagu xidhay lagu qabsanayo marka xaasil mawduuca dib ugu soo noqdo horta waxa waaye saddex arimood ay dhibtu ku taagan tahay markaan anu aan arkay sheekadan ilmaha maanta guriga laga kaxaynayo waalidka laga kaxaynayo ee leeyahay waalidkan ilmaha uma qalmo ayaga kuwan kaxaysanaya ilmaha wallahi tan qofkan ama ninkan ama booliskan guriga inta ugu yimaado waalidkan ilmaha ka kaxaynaya isaga og ilmahan ina meel ka xun la geynayo laakiin wadankan waxa jira eeg qofna qof kama cabsoodo laakiin warqad baa laga cabsoodaa hadda warqadda ninka soo qoray hadda sarigtaan maanta kaafe wada cabi saaxiibati laakiin shaqo markay noqoto warqadda ninkan uu soo qoray go'aan waxa ku qoran Faarax Cabdi ina laga qaado ilmaha hebel la yiraahdo Cusmaan oo laga qaado oo ilmahaas waalidkaas amni kuma qaba ilmahaasi ayuu yiri kaba soo qaad warqadda anigii baa booliisba kaba soo qaadba ninkan warqadda soo qoray saaxiibanahay warqadan hadalkan uu sameeynayo ma ka talaabsan karo qofkan la leeyahay ilmaha ka qaadna kaba soo qaad aniga booliiska ilmaha ka qaadayo iyadana waan qanayn qof fiican tahay oo laakiin ilmuhu uu edeb daran yahay oo ilmuhu been u sheegay oo ilmuhu xurbo ka sheekeynayo ninkan inta ku noqdo ma dhahay warqadan saas ninka islaantan ilmaheeda xune ee bal horta wiilkaadi ma dhihi karo waana warqadan aan raaco ninka warqadan soo qoray xbeeyga ma gelin marka wadankan xeer hadda warqad ku qoran yahay dadku way wadeen dhilaayeen ilaahay idinki muu walaalka noqdo muu walaasha noqoto
warqad xeer ku qora hadduu qofkan uu yani haysto warqadaasaa maamusha waxba kama gelin qofkan wax laga qaadayo qofkan kale marka muxuu ahaadaanay ninkan dhan ilmaha ka qaadaya hooyada ee meel kale geynaya isaga laftarkiisu uu yahay in uu ilmo waalidkiisa laga soo kaxeeyey waalidkiisu kala gacaylada iyo maxabada uu u hayo inuunan ka helayn meel kale uu ogyahay badanaa qaar waxaa la geeyaa meelo oo la iskugu keeno oo la dhisay oo maaragtay carruur badan ay joogaan oo hadday rabaan qaar oo daroogo looga maar waayey oo qashin iyo balaayo iyo daroogo isticmaalaya meesha la keenay haddaa la rabo qaar muxuu ahaadaanay ayagoo yar cabitaan bilaabay iyo qashin bilaabay marka waxaas markuu ilmihii guriga kolka hore saa hadday rabto yani waxay ka tahay muxuu ahaadaanay ilmahan guriga laga kaxeeyo waayo most of the parents yani waalidiinta badankooda Soomaaliyeed ama ajaanibku ilmaha internetka u diidaan waxay yiraahdaan saaxiib 10 dhigo waana dantiisa mana fahansan ilmahan marka wuxuu leeyahay ama de PlayStation ma raba PlayStation 5 ma raba isu kale ilmaha PlayStation 5 imsa waa $1 waay moqta marka khilaafku markuu bilaamo waalidkiyo ilmuhu that's the time oo ilmuhu intuu tago kuwa ilmaha qaata u sheekeenayo caadi ahaantana awal waa la wareysan jiray yaa kolka horena waxaa ka dhaxaysay cilaaqad fiican isaga iyo kuwan muxuu ahaadaan ilmaha qaata marka ilmihii markuu guriga ka arko in uu xoogaa ka bidan yahay waxuu raba uun arkayn u helayn waxay noqonaysaa inuu u leexdo dhinacii muxuu ahaadaan dadkii kale ee cadaankii dhibta koobaad ee maanta Soomaali ama ajaanib ilmaha looga qaatan waa dhibta believe me or not ilmaha guriga markuu waxuu ku uu raba u ka waayo markaasuu iyo dadka soo dhaweystaa kale muxuu ahaadaan ilmaha qaata taasi laakiin ma aha sababta meesha aan raba maanta inaan meesha uga hadlo waxay tahay sababtu 3 point ayaa muhiim ah si ilmahan loo fahmo kuwan loo fahmo adiga laftarkaaguna oo fahanti ta koobaad baa waxay tahay horta ilmaha iyo waalidka in cilaaqadoodu ay fiicnaato ilmuhu iskuulka markuu yimaado inaa waraysataa iskuulka waran sidoo ahaa waxaa la baraa ilmaha kelmad cadaynaysa inaa lala soo kulmay iskuulka oo ah in uunan 10 soo dhigan laakiin la soo waraystay waxaa la yiraahdaa kulan shir oo kale ilmaha waxaa la yiraahdaa aabo ama hooyo wax shira ma yeelatay maanta yaa la soo kulantay ilmuhu markuu yar yahay haddaad ka bilowdo conversationkaas iskuulka wuxuu ka soo qabtay aad waraysato markaasaa ilmihii haddii uu si fiican kugu sheekay ilmuhu run kuu sheego aad adiguna wixii fiican u sheegi kartaa wixii xun ee la yiraahdo de hadda gurigaaga aad ku qanacsanayeen soo raaci kartaa iyo waxaas oo kale iyo loo macnay ilmaha waalidku iyo dadka kale isku mid maaha anu waalidkaaga aan ahay hiblaayana waa macallimadaadi marka waalidka hiblaayo waxay macallimad u tahay eegya hiblaayo waxay macallimad u tahay si ay lacag u hesho oo ay ilmaheeda ay ugu beeliso aniguna waxaan u shaqo tagaa si aan adiga aan lacag aan u soo helo adigii adigu aan wada noolaano waalid Soomaaliya hadduu jiro xataa aad buu yartahay inuu ilmihiisa uu sidaa ugu macneeyo I don't think so inuu jiro waayo ilmihii waxa laga soo qaaday markuu yar yahay bajaa ma fahmaya leeyahay waxaan maxaa ugu macneynaa ilmihii waxa uu macnaysaa in uu farq u dhaxeeyo waalidka iyo macallimada iyo macalinka markuu fahmay ilmuhu waalidka iyo macalinka inuu farq u dhaxeeyo oo macalinku uu u yimaado iskuulka soo lacag u helo oo lacagtaas uu ilmihiisa wax ugu gado hadduu ilmuhu taa fahansan yahay weli gudus muu ku keena macalinku dhe yani nacnac muu ku keena weli macalinku waan never weligan ma dhicin macalintu kalaaska intuu yimaado nacnac waxa qayb ma jirto laakiin aduu sabti walba ama xad walba u siibsa nacnac meel walba geysa magdo ma sharabtid yani ilmaaga walba shasha macalinku waxa muu ku sameeyaa la macalinku ilmuu leeyahay ilmihiisu waxa uu sameeyaa oo maaragtay nacnac u siibiya oo dhar u siibiya oo meesha raba geeya marka macalinku hadduu ku yiraahdo gurigaaga hadaa rabin aniga iyo meel kale lagu geynay ogow gurigiisa kuma geynayo ilmaha waa in laga sii dhaadhiciyo waxana loo sii sheego 10 looga sii dhigo guriga hadhow tolo ilmihii oo saqaafad leh oo fahansan markuu iskuul ka baxo wuxuu og yahay gurigiisa inuu ka maarmeen ayaga laftarkooda xataa wixii serious ama ahane ilmo oo bambaan oo ilmi iyo waalid isku dhacay ma qaataan hadda maanta anu telefoon tan qaato aan ku yiraahdo wanimayo ilmahaygi baan salayn haddaan ku yiraahdo
ma qaadanayaan ma soo ordaa ma qaadanaan warqad baa wax lagu qaataa waa imaanaan anaa lay wareysanaa ilmihi la wareysanaa waa lanoo kala gar qaadaa carruurta waaweyn bay badanka saas ku dhacdaa markii ilmuhu dhowr 10 iyo 15 iyo ay gaadhaan xoogaa ilmuhu soo hooyin waa xilli hore ee xoogaa magaalka iska galeen dhalinyarta maartay siisa ama uu meelaha ku soo daahdaa ay badanaa dhacdaa Soomaalida ninkii waalidkiina wuxuu rabaa ilmo yar buu haystaa ninkan 15 jirka oo baaluqay oo nin weyn ah oo raba hadduu rabo inuu girlfriend iyo adduun iyo wax ka daba ordo ayuu isagina leeyahay waraxa ku socotaa yani sagaalkii habeenimo isna waxa uu tahay bada xilli gaar ahaan waliba weekendiga ma ogta odagii dhiiga ku kacaya inuu feeru rabaa ki yara meesha dagaal baa ka dhacay hadhow tal markaas ama isaga waca ama waalidka waca waxaana fiican in waalidku hor waco sayla aniga tahay waan ogahay dad badan oo iigu haysta ninkan muwaalan yani seeba anagu social wacanayna dhahay wallahi billahi that means qofku waalidku markuu waco ilmahaygu ma rabo inuu iga halaabay ka dhiganta ilmahaygu ma rabo inuu iga xumaado ma caawin kartiin waxaa jirta wax la yiraahdo imika wadankan ajoon wax jirta caawimaad qoyska wax la yiraahdo ayadoo ilmahaaga laga qaadan ayaanta gurigaaga lagu yimaado ilmahaaga lagu edbin way dhacdaa ilmahooda intay yani waalidka xataa qaarkood ay caayaan markii dambe loo wacay geeraa lagu qaada waa idab darantaa la yiraahdo wallahi bila qol baa lagu soo xiraa hooyada waxa ka weyd iska daay inta anaga xataa naga mehelaysa la yiraahdo meel baa lagu soo xiraa kiyo diinta ku soo noqday lagu soo celinaa marka waxa dadka badankooda waxa haysta marka maqlaa kuwan oo muxuu ahdaanay kuwan socialka war waa ilmo ay qaadanaan maxay qaadanaan may way caawiyaan dadka badankoodu moogtahay tan oo maaragtay ilmaha ay qaadanayaana waxaa jira meel isfahmi waa ka jira ama ilmihii yaa been sheegay oo intuu tagay ku hooy weydisha ama maxay ba isaan iyo idla ama iyadoo runaba ilmahan waaba la dilayba oo inta la dilay oo la garaacay ayuu ilmihii sheegay wadankii marka la joogay ilmaha la tumi jiray waana dhaqan marka mana fiicnana ilmaha ina maaragtay la dilana yaan aaminsanahay anigu muxuu ahaadaanay marka taas horta waa koow talabaad baa waxay tahay qofkan ilmaha dhalay inuu connectionkiisa isagu meeshan uu joogo inuu isagu wanaajiyo imaka nabigu wuxuu calayhi salaam تعلموا لغة قوم لتأمنوا شرهم ضد وحا luqadooda aad yani barta waxaad ka nabad gelayseen sharkooda qofka hadduu maanta uu isagu u fahansan yahay xeerka laga rabo ama xeerka awlaadda ama xeerka qoyska ama waxaas intuu raadiyo isagu u akhristo buugaan badan bay ku qoran tahay ilmaha soo loola dhaqmo waxay taalaa makaatibtay taalaa uu soo qaadan karaa qofku akhrisan karaa moogta qofkii ka horta cilaaqada isaga iyo ilmiga ka dhaxaysay markuu hagaajiyo haddana inuu soo jeesto cilaaqada isaga iyo mujtamaca inuu ku nool yahay ka dhaxaysay sidee matooda wax ka qaldayn mateeda wax ka qaldayn qofku intuu analyze sameeyo soo fariisto book soo qaato waxay aaminsan yihiin qof intuu ku yimaado anagu waxa ma sameeyno idinku ma xamaas sameeyeen anagu ma xamaas sameeyeen kan kale ma sameeyeen qofku dhahaya ma jiro believe me adiguna inta u tagtay ma dhaayst